هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن ومجمع قلب ينبض بالقرآن ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وان wanaagsan daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeennii maca alqur'aan qaybtiisii saddexaad daawadayaal qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allah tacaala goobaha ilaahay quraankiisa ku tilmaamay goobo badan ayaa jira ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku tilmaamay goobta koowaad ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku tilmaamay waxa weeye waa magaalada Makka ama xaramka ilaahay subhanahu wa ta'ala ee barakaysan ilaahay laba aayad ku tilmaamay suuratu fathi aayada 24aad waxaan yidhi ilaahay subhanahu wa ta'ala ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم هذا قيبكم إذا إلهي سبحانه وتعالى سيدو كده وحوري آيات سورة آل عمران اللي هي سقاشانات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا goobta labaad ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka tilmaamay waa magaalada Madiina ee barakaysan Madiina way Madiinatu Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ama magaaladii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ku tilmaamay suuratul ahzaab aayadda 6aad waxaanu ilaahay subhanahu wa ta'ala la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim آية الله سبحانه وتعالى كتب مامي والمرجفون في المدينة هذه هل كان وصف وحكى لك من القوبة الله سبحانه وتعالى القرآن كيس كتب مامي بدر وما وقوبتي وقد عيد قال كي بدر وأنا الله سبحانه وتعالى القرآن كي كتب مامي آل عمران آية بقول إياس تحيلا تنادو حنود الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة waxaa kaloo ka mid ah goobaha ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku tilmaamay Xunayn sidoo kale dagaalkii Xunaynna waa la oran jiray dagaalka magaciisa la oran jiray tooba ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay aayadda 25aad waxaan yidhi ilaahay subhanahu wa ta'ala wa laqad nasarakumullahu fi mawaadin kathiratin wa yawma Hunayn goobaha ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo kale ku tilmaamay daawadayaal quraanka waxa kamid ah Masar ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka warramay suuratu Yusuf ayuu ka warramay aayadda 9aad isagoo nabi Yusuf la hadlaya aabihi waxa weeye labadiisii waalid ayaa wuxuu ku yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala labadiisii waalid afan ayaa wuxuu yiri وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين waayahay meelaha ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo kale ku tilmaamay daawadayaal quraanka waxa kamid ah Arafat amba wal mash'ar al haram meesha la yaqaano ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa idha afadtum min arafatin fadhkuru allaha 'inda al mash'ar al haram ayadaas 189aad ee suuratul baqara ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay waxa kale kamid ah goobaha ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku tilmaamay maqaam ibrahim ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay ayada 79aad ee suuratul al imran waxaanu yidhi ilaahay subhanahu wa ta'ala fiihi aayatun bayyinatun maqaamu ibrahim waxaa kaloo ka mid a goobaha ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay baabil
إلهي سبحانه وتعالى وحكتب معه سورة البقرة آية بقولي الله وحنولي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بابل وحلة هو مالك من العراق marka meeshii ay ku soo degeen labadii malag ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo dejiyay sixirka Maharut iyo Marut Ilaahay ka tilmaamay quraanka suurad waxa weeye al-Baqara Masjidul Haram ayaa kamida iyo Masjidul Aqsa goobaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku tilmaamay waxaan u Ilaahay subhanahu wa ta'ala Masjidul Haram ka isagoo ka warramay Masjidul Aqsa labadaba subhanalladhi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قوبا كلا إلهي القرآن كسكوت المام وحكمنا داود الأرض السبع إلهي يقول سورة سبع آية 5 وحنولي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية sidoo kale goobaha Ilaahay quraankiisa ku tilmaamay kamida Sayna waxa weeye wuxuu tilmaamay Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratul mu'minuun aayada 20 waxaan yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa shajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bid-duhn تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين داود ينتهي نكسوكو بدون إن شاء الله تعالى مقال كان نكهد لني قوبها إلى سبحانه وتعالى كتب من القرآن كيسا انتهوا كل مدونا من داود البرنامج كان وحن كتكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالله سبسكرايب صاحب شانال خاص يدل سعود تقيبا ضمبه يا برنامج كذا كلا نسوق لندن إن شاء الله تعالى شانال كأدب ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته